waxaa ka mid ah golaha ammaanka qaranka Turkiga kulan ay yeesheen ayay war ka soo saareen howlgal dhawaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi waa Rajab Tayyip Erdogan. Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden oo safar qarsoodi ku jooga gudaha dalka Sacuudiga. Haddaba muxuu daaran yahay safarkooda iyo warbixin aan arrintaas idinka hayno ayaan idiin soo gudbin doonaa. Dagaalka ka soconaya gudaha dalka Ukraine ee Ruushka iyo xukuumadda Zelensky u dhaxeeya ayaa cirka isku sii shareeraya xilli xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken uu isagu weerar afka ku qaaday hoggaanka xukuumadda Moscow waa Vladimir Putin oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid ku xadgudbaya arrimo dhowr oo uu tiriyay. Qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa tabinteena ku daawan doontaan saaxiibayaal ee ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Kulan ay maanta yeesheen golaha amniga qaranka Turkiga ayaa war ay ka soo saareen howlgal uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan ka oo laga fulin doono xuduudaha uu la leeyahay dalalka qaar Turkiga. Arrintan ayaana lagu sheegay in Turkiga uu marnaba howlgalkaasi ku beegsan doonin madax bannaanida dhuleed ee deriskooda, laakiin waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay inay ilaaliyaan amniga qaranka Turkiga. War qoraal oo ka soo baxay kulanka maanta ay yeesheen xubnahan ayaa golaha waxa uu ku booriyay wadamada ku xadgudbaya sharciga caalamiga ee taageeraya argagixisada in ay joojiyaan habdhaqankaasi oo xukuumadda Ankara aysan marnaba raalli ka ahayn. Golaha waxa uu hoosta ka xariiqay in Turkiga mar walba uu buuxinayo bay yiraahdeen ruuxadda iyo weliba sharciyada isbahaysiga ee kudlooyinka caalamiga ee xubinta uu ku yahay Turkiga. Waxaana kulanka lagu sheegay in Ankara ay ka rajaynayso mas'uuliyad isku mid ah iyo daacadnimo in ay sameeyaan xulafadooda. Dhinaca kale golaha ayaa sidoo kale ka hadlay howlgalka ka dhanka argagixisada ee Turkiga tallaabooyinka uu ka qaadayo, iyadoona Isniintu ay ahayd markii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu sheegay in dalkiisa uu qaadi doono tallaabooyin ku dhammaystirayo inta ka hartay aagga nabdoon oo 30 kiiloomitir ku teedsan soodinta koonfureed ee dalalka uu la leeyahay Turkiga. Turkiga ayaa xuduud dhuleed la leh dalal ay ka mid yihiin Suuriya iyo Ciraaq oo dhanka koonfureed ku xiga, waxaana uu ka shaqaynayaa baa la yidhi siday meesha uga saari lahaayeen saldhigyada argagixisada iyo inay ka hortagaan kuwa ku cusub khatarna kuwa ammaankiisa qaranka Turkiga iyo badbaadada dadka deegaanka isaga gudba xuduudda Turkiga iyo wadamada kale uu la leeyahay. Si kastaba ahaatee, Ankara ayaa tan iyo sanadkii 2020 ka bilowday howlgal oo ka dhan ah kooxda PKK ee waqooyiga Ciraaq, waxaana ugu dambeeyay howlgalkii Kraglock lagu magac daray ee bishii Abriil lagu bartilmaameedsaday goobaha ay ku dhuumaaleystaan PKK-ga ee gobolka Metila ee dalka Ciraaq. Waxaase ka horreeyay howlgalkaasi kee kale loogu magac daray Cloud Tiger iyo Cloud Eagle ka oo laga bilaabay sanadkii 2020, xididadana loogu siibay argagixisada ku dhuumaaleysata waqooyiga Ciraaq oo maleegayay weeraro ka dhan ah xuduudda uu Turkiga la leeyahay dalkaasina ay ka soo fulinayeen. Tan iyo sanadkii 2016, xukuumadda Ankara ayaa waxay bilowday howlgal 3 geesood ah oo guulo laga soo hoyay ka oo ka dhan ah argagixisada oo ka gudba xuduudda waqooyiga Suuriya si uu uga hortago saameynta marinka argagixisada oo awood u siinaya dejinta naqshadooyinta oo xilligan uu ku doonayo inuu ku soo nabdeeyo deegaanada ay kaga harsan yihiin. In ka badan 35 sano oo olole argagixiso ka dhan ah Turkiga ayaa ka waday, iyadoona si gaar ah u beegsanayay kooxda PKK-da oo uu ku daray liiska argagixisada Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub. Waxaana mas'uuliyadda dhimashada in ka badan 40,000 oo qof oo ku jiraan haween, caruur iyo weliba dhallaan ay geysteen kooxahan oo iyagu lagu magacaabo PKK iyo YGB, kuwa oo ah garabka PKK iyo Suuriya ka dagaalama. Kan dhanka iyo Sacuudiga oo la sheegayo saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Biden oo safar qarsoodi ku jooga Sacuudiga iyo waxyaabaha ay halka u tageen ayaan idiin soo gudbinaynaa. Website-ka Axios oo soo xiganaya shabakadda wararka gudaha dalka Sacuudiga ayaa sheegay in 2 taliye ee ugu sarreeya maamulka madaxweyne Joe Biden ay safar qarsoodi ku tageen dalka Sacuudiga si ay ugala hadlaan suurtagalnimada heshiis dhexmara Sacuudiga, Israa'iil, Masar. 3 sargaal oo Mareykan ah ayaa hadda jooga iyo kuwii hore oo ku sugnaa bariga dhexe ee aqalka cad Kad Brett iyo weliba ergeyga tamarta ee wasaaradda arrimaha dibadda Amos Hochstein ayaa tagay Sacuudiga Talaadadii si ay kulamo ula yeeshaan madaxda
madaxda sare ee Sacuudiga ila wareedyada arrintan helay ayaana sheegaya warka safarka ayaa imanaya ka hor safarka Biden ee la qorsheeyay inuu ku tago bariga dhexe dhamaadka bisha Juun ee soo aadan oo ay ku jirto booqasho uu ku tagayo Sacuudi Carabiya. Aqalka cad ayaa diiday inuu ka hadlo halka safaaradda Sacuudiga ee Washington ay isla markiiba ka jawaabin cod sifaala ah oo lagu sheegay. Axios ayaana arrintaasi soo xiganaysa wargeysyada gudaha dalkaasi. Biden ayaa si isdaba joog ah u weydiistay Sacuudiga iyo soo saarayaasha shidaalka ee OPEC inay kordhiyaan wax soo saarka wadajirka ee kooxda si ay u bixiyaan sahayda suuqa oo dheeraad ah iyo qiimo jaban. Si kastaba ha ahaatee, kooxdu kama aysan jawaabin dalabkaasi waxayna ogolaatay inay u hoggaansamaan qorshaheeda wax soo saarka si tartiib ah. Axios ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu cadaadinayay Sacuudiga wax soo saar badan si ay u sameeyaan hoosna ugu dhigaan qiimaha gaaska ka hor doorashooyinka xilliga dhexe, in ay awood u yeeshaan inuu riixo cunaqabataynta ballaaran ee saaran saliidda Ruushka, iyadoona ay jirto dagaalka Ukraine ee Ruushka uu ku soo qaaday taa oo caqabad weyn ku ah qaaliyowga gaaska ee dunida. Qaybihii dhexe ee tabinteena ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal, bal markan aan eegno dhanka iyo wararka laga soo tabinayo dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay gudaha dalka Ukraine, gaar ahaan deegaanada Donbas oo iyadoo ah halka xilligan ugu halisan dagaalka Ukraine ee u dhexeeya militariga Ruushka iyo xukuumadda Kiev. Ukraine ayaa sheegtay in markaasi dagaalka uu ka soconayo dhanka galbeed ee gobolka Donbas, taa oo ah halka xilligan ay isku dagaalayaan xoogagga hubeysan ee Ruushka iyo weliba kooxaha ka hortagaya ee ka tirsan militariga Ukraine. Ku-xigeenka wasiirka difaaca Ukraine ayaa sheegay dagaalka uu yahay xilligan mid gaaray xaddigii ugu sarreeyay cadowga oo uu la jeedo Ruushka. Ayuu sheegay inay weerar hujuum ah mar walba ku soo wadaan oo kala joogsi lahayn, iyagoo jihooyin kala duwan ka soo weeraraya. Xaaladda ayuuse sheegay inay adag tahay, waxaase ay aad ugu dhow yihiin ayuu yidhi magaalooyinka baadiyaha kuwa oo ah furooyin ugu muhiimsan gobolka Donbas oo dalka Ukraine ay qaybo ka mid ah xilligan suurtagal tahay in mar kale ay dib u qabsadaan. Waxaana militariga Ruushka isagu yahay mid mar walba aan ka joogsanin inuu weerar toos ah ku qaado militariga Ukraine oo iyagu xaaladooda xilligan ay tahay mid sii daciifaysa. Dhinaca kale, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken oo ka qayb galayay kulan ka dhacayay jaamacadda George Washington ee gudaha cariga Mareykanka ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Ruushka ka oo sheegay inuu keenay qatar cad oo taagan kadib weerarkii Ukraine ee 3 bilood qaatay. Waxa uu sidoo kale Ruushka ayuu yidhi mabaadi'da madax bannaanida dhuleed ee Ukraine ee ku xusan axdiga qaramada midoobay si loo ilaaliyo ayuu yidhi dhammaan wadamada in laga qabsado amaba lagu qasbo weerar toos ah in lagu galo. Taana waa sababta dalal badan ay ugu midoobeen inay ka hortagaan ayuu yidhi gardarrada Moscow ay ka wado, sababtoo ah waxay u arkaan ayuu yidhi duulaan toos ah oo saldhig u ah in la burburiyo nabadda iyo amniga dhuleed ee ka dhexeeya labadan wadan. Ukraine ayuu sheegay in si geesinimo leh ay ula dagaalamayaan militariga Ruushka si ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo madax bannaanidooda, iyadoo gargaar aan horay loo arag ay ka heli doonaan Mareykanka iyo dalalka caalamka. Waxa uu sheegay in kastoo aanu dagaalka dhammaan, haddana madaxweyne Putin ayuu sheegay in uu ku guuldareystay guulo ka gaaro keliya hal ujeedo oo taasi ahayd istaraatiijiyad uu ku yeesho dalka Ukraine. Aan eegno qodobka ugu dambeeya tabinteena. Kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta ay yeesheen kulankoodii caadiga ah ayaa lagu ansixiyay magacaabista taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo loo magacaabay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada ugu muddada dheer islamarkaana ahaa xildhibaanka sida aadka u dhaliilayay 5tii sano ee lasoo dhaafay xukunkii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Mahad Salaad ayaa xilligan waxa uu bedelayaa Yaasiin Faray oo qudhiisa ka mid ah golaha shacabka islamarkaana si ku meel gaar ah u hayay xilkan kadib markii laga qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taliyihii hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka. Hambalyo guud ayaa qabsatay baraha bulshada kadib markii ay soo shaacbaxday magacaabista Mahad Salaad oo warbaahinta loo dusiyay maalmo ka hor in uu noqon doono taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Haddaba xilkan cusub kadib Mahad maxaa hor yaala oo hay'addan iyadu ah mid ku milantay 5tii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda maamulkii madaxweyne Farmaajo hortaagan in uu
dhammaystirana laga doonayo. Nisa ayaa ahayd hay'ad iyadu 5tii sano ee la soo dhaafay ku dhex milnayd siyaasadda maamulkii madaxweyne Farmaajo, waxaana lagu dhaleeceeyay inuu hay'adda ka dhigay aalad uu isagu ku caburiyo mucaaradka waa xukunkii madaxweyne Farmaajo. Shirqoollo siyaasadeed ay ugu caansan yihiin dilkii Igraan Tahliil Faarax iyo xildhibaan Aamina Maxamed ayaa sidoo kale ka mid ah kiisaska lala xiriirinayo magaca hay'adda Nisa iyo taliyaashii xilligaasi iyagu hayay. Mahad Salaad ayaa isagu waxaa xilligan laga doonayaa inuu fuliyo la dagaalanka argagixisada oo la sheegay in hay'addan ay si ba'an uga gaabisay 5tii sano ee la soo dhaafay, taas beddelkeeda xoogga saartay basaasidda siyaasiyiinta mucaaradka. Qaar ka mid ah madaxda waaxyada Nisa iyo saraakiil ka mid ah hay'adda ayaa ahaa kuwo horay uga soo goostay argagixisada oo iyadu si gaar ah loogu sheegay hay'addan inay xiriir toos ah la leedahay ururka ka dagaalama gudaha Soomaaliya ee hubeysan ee Al-Shabaab. Dhammaan kiisaskaasi waxa ay ka mid yihiin waajibaadyada culus ee horyaala agaasinka cusub ee hay'addan ay yeelatay. Waa xildhibaan Mahad Salaad kuwa u baahan wax ka qabasho degdeg ah si ay u noqoto hay'adda mid ay ku kalsoonaan karaan shacabka iyo guud ahaan madaxda dowladda. Intaasi waxaa inooga eeg wararkii dunida ah oo xilligan aad ka daawanayseen Kalsama TV tan iyo kulanti dambe inta aan dib ugu kulmayno warbixino ka duwan kuwan waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo.